anigoo maartay madaxa kormeerka madaxa arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Gabiley dhammaan waxaan salaan kalgacal u diray xusbiga kulmiye gobolka Gabiley guud ahaan Soomaaliland waxaan leenahay insha Allah bidna kariim sida fiican ee ololu u socdo iyo saansaanta soo ureysa insha Allah guul ayaan filanaynaa hadii Allah yiraahdo anigu maartay way aragnimo ahaan waxyaalo badan baan maartay takhasus ku nahay أفر مدحونا يلا سعي أفر تام مدحونا كمان دورن قبيل عبد الرحمن طور مركان نوع مدحونا هرية وأيام لا نغني وحوي سيبنا يسمى نلصق قلبي هذا هم بقول مارس سيبنا يسمى نلصق غني عقال أيام مارس كحجي ووضع كمال في عسول قارسين الريال وأبيد مرادي هذا أحمد محمد سيرايو وحوي ماشوا كياني وأنا أركيسا مدحونا شيء كل واحد الله هينو وسمي سيد درجات عيدك iskuulada macallimiinta oo siiyay iyo maartay horumarka maartay guud ahaan manطقada Soomaaliland waxa weeye waa dawladda horumarinta marka waxa weeyaan saddex musharax baa imika tartamaya saddexda musharax anagu kumaan dooran musabixi qabiil runtii qarnimo ayaan ku doornay iyo waarignimo leeyahay musabixi isagoo halgankii ilaahay maartay deetusay iyo cibaaradii soo haysatay dawladii siyaad bare qaxidii aynu qaxnay ma garanaysaa nuu qaxnay daroor iyo dulcad iyo balleyle meesha la yiraahdo xeedho kaliya ilaahay nagu diridkeena madaqada ilaahay wuxuu uga dan lahaa inaynu afgaranno oo aynu qabyaalad waxa uu kala jidino kolba cidii ma garanaysaa aanu door bidno aynu dhiibno maanta meel fiican baynu maraynaa musabixi cabdi taariikhdiisa hadaan ka soo sheekeeyo ninku وأنو يشاء قف مارتي هيبد إلهي iyo bixin maalintu itaal rooyay waan dadka bixiya khaasatan maalintii mesela la galay boormo kale Muuse iyo hayba Umar magan way ka aragtid duwada sanamta runtii dhexdo ayuu ku xidhay halka waxaan maalinta ka arkay Muuse inuu madaxweyne noqonayo sababtoo dadkiisa markuu hambeeyo Soomaaliland magaraysa oo maartay yiri war waa sidii magaraysa maalintaas taariikh muhiim ah ay mudan tahay waayo inagu Soomaaliland baan doonay inaan wala noqonayn doonay مثلا إن ريالو كله ده وحنا كدورنا وادي ديمقراطية وضد أيام لو حري قبيلة كمان دورنا مركا واحد من ضد كيم كقبيلة يحكوها الله يا ما هي وين قرني مضلات كيا مو سووا هنيكي عيدا مضي هالكن سنمته قلبيات كانوا يحكوا من قارن قبيلة وحي كارا إياه هالكن سوري علي يو وزير عبد الله محمد دعالي هذا بون حصوصتا كوريجي شيخ عيسى قبيلة مارتي هالكن صنوا هولا كود بلون marka maalinta Muuse iyo maalin hore inuu leader yahay waxyaalaha maartay ay ka mid tahay ciidamadii uu xareeyay ciidamadii xoog lahayd Soomaaliland maanta waa rag dhibta uu aakay ee maartay u meel dhigay madaxweynaha rug cadaalada Axmed Maxamed Siiraayo waa ninku dhabarka noo taabtay Muuse musabixi karaamadiisii sharaftiisii iyo wax walba way ku jiraan waayo niga rug cadaalada deeno mulmiyaan marka waxa weeyaan ninka soo baxay waxa lagu gartaa astaamo badan waa maamul qaadasho waxa waa shacab dadka Soomaaliland ma wada arkayaan maanta in waxa musabix yahay in haykalkiisu aad iyo magaraysan nin hawlaha ka bixi karay siyaala lagu gartaa waxa ilaa ambiyadii iyo dadkooga Ilaahay ku diray marka qofka soo baxaya Muuse waa la socota halku leexada ka soo koray inta jeer oo magaraysan ka caaqufay inta jeer oo ka caaqufay inta hadana waa rankii dadka abaalka ku lahaa ee dulka xoreeyay والله يندرد ميرس دالدت كي دول وطن كان حرية يا هذا كل ما أنت النوع ده الدنيا جبهة الدنيا قبضتها وطننا ذل بابيسا مركب حوالي موسى وسجاع ونن مارته أذك وانا كم بحكي قاعد نقدرنا وقرنمو إن شاء الله بالله كريمنا حالتها إما كورية سانسان تلا أركيو يسقوا وطن كهو جميع يا لارك دونا ضد كصومال لأنه هو يسقوا عرقت مارته ضد كم بوحك الله عرقتي ودل كين يدم قشديس يوح البوي قرنيان marka waxa weeyaan Soomaaliland ha noolaato duurahan gobolka Gabiley ha noolaado insha Allah guul iyo maalinta mustaqbalka hadii la ogaan doonaa